بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كيا سومالي كود برتان كغلية يوتيوب أصحاب ما أنتوا عن إيديهم وذا عشر لي هذا ويلو كحوي هدي أيدي شرح وحوي وأيتريشن كونديشن أكو جاكين كرينيسيد كتبنا أيتريشن هنكوسين أيتريشن كان كلها وحوي وكسر اللعبة وكسر العلة على سوي مقرته مركب واحد جعل سينا كود إذن كنتو سقاك while loop كبايثون كلو شقيو waxaan kaloo baranaynaa for loop ayadana sida loogu shaqeeyo insha Allah waxaan idin tusayaa intaan hore u soo baranay sida variableska conditionska iyo loopska kan hadda amarayno sida loogu sameeyo game fun ah oo insha Allah oo idin tusi doona qaabka ugu shaqeey karaan just kali waxa u baahan tahay ina AD la timaadid waxaad rabsiinaysaa sameysina aad code badashay marka insha Allah game baranayna sameyn doonaa marka hore waxaan baranaynaa while loop iyo for loop qaabka Python-ka loogu barto ama qaabka Python-ka ee u qormaan syntax-kooda program yar baan sameynaynaa oo ah iteration waxaan sameysanaynaa variable la yiraahdo I oo inta badan iteration ka loo soo qaato initialize iyo waxaan leeyahay one waxaan leeyahay while haye variable ka I haddii uu la eg yahay hadduu clear yahay ama la eg yahay baan yiri toban sidaan hore u soo baranay condition marka isticmaalaysid waa inaad ku dartid syntax ahaan weeye syntax Python-ka ay leedahay dhinaca condition-ka ayaa waxay tahay saan ina labadan dhibic meesha dhigtid kadib waxaa leedahay in uu soo print gareeyo inuu ku soo print gareeyo I marka I buu soo print gareynayaa kadib waxaan leeyahay I is equal I plus 1 I plus 1 ama short ayaa raadsanayna short case baan ka dhiganaynaa waxaan leenahay horena waa soo baranaydan markaan soo baranayna waxaan u maleynayaa assignment operator baan ku soo baranay insha Allah qofkii fahmi waaya plus equal waxaan jeclaystay in uu dib ugu noqdo lectureska operatorska baan ku sharaxay marka waxay la mid tahay I is equal I plus 1 marka haddii aan hadda jagging ka fiirino condition kan logic ka yarka aan sameynay baa wuxuu yahay initialize I waxaan sameysanay 1 buu noo leeyahay waxaan yiri condi while I oo waxay ka yar tahay ama la eg tahay 10 iso print gareey baan yiri oo iso saar marka muxuu iso saarayaa waa 1 oo waxay ka yar tahay ama la eg tahay 10 marka I waxay wadaa 1 bay wadaa marka waxaan yiri halka kan 1 bay noqonaysaa haddii aan halka kan dib saa idinku soo noqdo aan ka dhigo comment I muxuu wadaa waa 1 okay waan fahmay is equal halka waa 1 wixii ayda ilay waday waxa ayda horta aan ka dhigto waa variable I is equal bay noqonaysaa saas ay noqonaysaa ayda oo aan wato waa 1 la igu daray 1 is equal to that's simple laba way marka halka 2 buu ii wadaa number 2 marka wuxuu iga bilaabayaa number 2 marka waxaan iri haddii uu number 2 ii wado haddana condition-ka wuu laabanayaa checking-ka wuu laabanayaa halkan uu laabanayaa halka wuxuu wadaa 2 marka wuxuu yiri 2 is less than or equal to 10 2 buu soo print gareynayaa kadib uu fiirinayaa wuxuu leeyahay 2 halka kan 2 bay noqonaysaa halka kan marka wuxuu noqonayaa 3 bay noqonaysaa kadib uu fiirinayaa uu noqonayaa halka kan 3 bay noqonaysaa wuxuu fiirinayaa 3 ma ka yar tahay ama la eg tahay 10 3 buu soo print gareynayaa halka kan imaanayaa iyadoo 3 3 plus 1 4 bay noqonaysaa 4 markay noqoto halka kan 4 bay noqonaysaa sidii baa laga fiirinayaa that's iteration saas u laalaabanaysaa haddii aan halka kan kaliya aan ku daro print
done iteration. marka haddii aan fiirno logica kan inuu shaqeynayo insha Allah waxaan hubaa inuu shaqeyn doono insha Allah. waka one waa sidii ayni sheegay one buu iga bilaabaya, one buu wadaa one markuu wado waxaan fiirinay mar labaad two fiiriyey, two markuu fiiriyo haddana 3 4 5 6 7 8 9 10 kadib muxuu yidhi done iteration. marka haddii aan halkaas zero ka dhiga ka waran, marka waxay noqonaysaa 0 plus 1 halkan 1 bay iga bilaabanaysaa. marka wuxuu ka bilaabayaa iterationka 0 haddii aad fiirisaan wuxuu ka bilaabay 0 kadib muxuu yidhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 done iteration. that is while loop iteration. saas ayaa loo sameeyaa. for loop waxaan ku baranaynaa sida while loop ma ahan, for loop ay ka duwan tahay. oo for loop haddii aan idin sheego waxa weeye waxaan kusoo dhiganay casharkan ka horeeyey oo ahaa casharkii ka horeeyey ayaan kusoo dhiganay oo aan dictionary-kii ka horeeyey ayaan kusoo dhiganay. haddeer waxaan dhiganaynaa waa for loop waa iteration ayaduna oo way soo celisaa. marka 3 step ayadana maraysaa, 3 stepkaas ee marayso ayaan insha Allah idin tusiyaa qaabka Python loopska loogu sameeyo, for loopska loogu sameeyo. marka hore waxaad sameynaysaa for baa leedahay, waxaad sameysanaysaa variable magac baad sameysanaysaa. variablekan waxaa la baxayaa Somali code. waxaa leedahay in baa leedahay halkaas waxaa gashi ka dhaca magaca subscribe please baan geliyey. waxaa leedahay sida caadadan oo ahayd waad xiraysaa. halkaas waxaa leedahay marka print baa leedahay, kadib baa waxay gelinaysaa variable-kii aan la baxnay. this is the step 1 waa step 1 kan. marka Somali code ayaan variable ka dhiganay, xagga kan ayaan ku declare gareynay oo kooda yarnay. marka waan fiirinaynaa, marka wuxuu noo soo qabtay xaraf SUPSCRIBE please oo xarfa ayuu noo soo saaray. waxaa jira iyada oo number laga dhigayo. marka step 2 baan galaynaa. step 2 meesha tan aan magaca uga yeerino ayaa waxaan ka dhigaynaa function la yiraahdo range. marka gudihiisaas ayaan functionka waxaan uga yeeranaa numbers. marka wuxuuna siinayaa 0 ilaa iyo 9 because xisaabaadka index halkaa index ide kadib halka kan uga yeer. marka indexka hadii jeer wuxuu ka bilowdaa 0. marka 0 ayuu nooga bilaabayaa, dee markii 10 jeer la rabo 9 ayuu ku dhamaadaa. xisaabta caadiga 9 ayuu ku dhamaataa ilaa 10 0 to 9. marka wuxuu leeyahay wuxuu noo soo saarayaa 0 to 9. yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yes waa step 2 oo functionka aan isticmaalno waxa weeye waa range. markaan isticmaalno step 3 xogaa stepka kan inay la fahantaan isku dayaan. stepka kan waxaan leeyahay waxaan la baxayaa variable la yiraahdo asxaabteeda sikow. asxaabta waxaan la keysanayaa arrayga gudihiisa waxaan gashanayaa magacyo. magacyadaas saaxiib 1 iyo saaxiib 2 saaxiib 3 saddexdaas ayaan u yeertay.
inta tan waa cunayaa oo ma u baahni hadeer ma isticmaalayo laakiin waxaan u yeeranayaa variable-kaas halka kan iga bedel oo ka dhigo si ay isku qaataan saaxiibayaal si ay isku qaataan waxaan ka hadlaya iyo variable-kooda si ay ula fahantaan yes waxaan haystaa asxaabtayda baan samaystay oo variable la yiraahdo waxaan la ekeysistay array oo igu jiraan saddexdaas value marka wuxuu isoo daabacayaa arraygaas oo dhan buu isoo daabacayaa sababtoo variable-ka ayaan xagga kan declaration ku sameeyay ugu yeeray marka variable-kana waa u yeeray marka wuxuu ii sameynayaa inta tan ayuu isoo saarayaa insha allah haddii aan checking karayno saaxiib 1 saaxiib 2 saaxiib 3 yes waxaan la ekeysanaynaa length marka waxaan leenahay range marka xisaab ahaan u isticmaalayso forka waxaad isticmaalaysaa wax la yiraahdo range marka range-gaas waxaa noo galaya function aan hore usoo qaadanay functions ka daba baahan tahay inaad soo ogaatidna waxaan jeclaan lahaa casharada ugu horeysay inaad dib ugu laabatid length oo loo soo gaabiyay length marka len ayaan soo qaadanayaa halkaas waxaa ii gelaya asxaabteeda ay galaysa yes asxaabteeda marka haddii aan kan idin fahansiiyo waxa weeye length wuxuu ii fiirinayaa arrayga hadii jeer index weeye indexkana hadii jeer xisaabaadka oo kusoo dhigateen oo markaa dhiganayseen logarithmka oo soo aragteen hadii jeer indexka wuxuu ka bilowdaa waa 0 1 2 marka 0 1 2 marka tan waxa ii noqonaysaa waa 0 1 2 marka haddii aan hadeer fiirino muxuu siinayaa 0 1 2 oo indexka ah haddii aan halka kan ku daro array oo aan dhaho 1 is maxaa dhacaya yes 0 1 2 3 hal baan ku daray haddii aan dhaho satan wuxuu isoo saarayo yes waad aragtaan error ayuu isoo saaraya len 7 oo lenka kan ah marka inay la fahanteen baan u malaynayaa haddii aan array ku daro baan ku iri haddii aan array ku daro laba ku daro kuwa kan ayuu 5 ka dhigayaa 0 1 2 3 4 ayuu dhahayaa 0 1 2 3 yes 4 buu ka dhigay hadaa ila arkaysaan laba ayaan ku daray 0 ka bilaabayaa ilaa iyo 4 haddii ay ila fiirisaan meeday 0 1 2 3 yes 4 buu ka dhigay hadaa ila arkaysaan 4 marka kanuna waa kaas 4kii insha allah waxaan ku xujinaynaa gamingkii oo gameka sida micnihii loogu sameeyo pythonka annagoo isticmaalayna codingkan soo baranay horey pythonka kusoo baranay insha allah la jirka ku xuga waxa weeye gaming fun baan sameynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahaa inaad asxaabta la wadaagtid please subscribe-ka ha ilaawin share comment like please kambeelkana taabo si aad u heshid mar walba waxaan soo posti kareeno qofka ugu horeeya daawada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana weli kaa codsanayaa inaad asxaabtaada la wadaagtid haddii aad ka faa'iiday ama aad ila socotid waxaan hubaa haddii aad step by step ula socotid in aad ku guuleysanaysid python aad fahmaysid ilaa aan python projectya ku sameyno insha allah waa wadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.